Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan wanaagsan walaalahey qaaliga aan jeclahay meel kastood adduunka daafiisa aad ka joogtaan ood naga daawanaysaan kusoo dhawaada channelkayga Dhool Dhalaal Cooking. Haddii Allah awooda lagu qadaro insha Allah maanta maxaan hagaajisanaynaa buskud ayaan hagaajisanaynaa. Horay waan usoo geliyay insha Allah laakiin kan wax yar ayuu kaga bedelan yahay buskudkii hore. kaas qumba ma ku darin laakiin kan qumba ayaan ku darsanaynaa insha Allah. Qumbaha diyaarsanay supermarketyada laga helo ee hoolan ee qalalan waliba insha Allah ayaan ku dareynaa. Sidoo kale shukulaato ayaan halkaas ku haysanaa. Shukulaatada waa iska qurxis haddii kale waad ka dayn kartaa. 2 xabo oo kuna bakeeriga saafkiisa oo sixinka ariga ah subaga xoolaha maasha Allah. Sidoo kale halkan waxaa ku haysanaa caano baking powderkii iyo carfisadii. Caanaha waa hal qaado iyo wax yar, carfisadii baking powderkana qaadadaas ayaan ku soo cabirtay. Sokortana u jeedin waa bakeerigaas aad uma buuxdo. Burkana labadaas ayaan isticmaalayaa bakeeri oo bur ah. Sidoo kale halkan maxaa ku haystaa carfisada aan isticmaalana waa taas carfisada qalalan haddii mid qoyan aad heli kartidna maasha Allah. Haddii intaba aadan haysan waxaad ku darsan kartaa hayl ayaad isticmaali kartaa insha Allah. Haddan maxaan guda galaynaa asxaabteed qaaliga ah isku dardarkii. Intan maxaan ku soo shubtay ukuntii. Fargeeta ayaan soo qaatay. Waan garaacaya waad u jeedin si fiican ayaan u garaacaya insha Allah ukunta. Haddii mashiin aad haysato oo kuu fududeeyo mashiinka ku sameyso. Haddii gacantaada aad ku hagaajisan kartana sidoo kale ama bahalaha aan lagu qaso doolshaha waxyaaba macmacaanka lagu isticmaalo aad ku isticmaali kartaa insha Allah. Hadda ukunta markaan si fiican u garaacno maxaan ku soo darayaa subaga iyo sokorta ayaan ku soo darayaa insha Allah. Ukunteena waan garaacnay subaga iyo sokorta ayaan ku soo darayaa. saas ay la soconaysiin subaga iyo sokorta waa kaas ku soo daray. Waan ku garaacaynaa iyagana insha Allah si fiican ayaan isku dhex gelinaynaa. Subaga wax yar ayuu uga fadhiistay waan kululeeyay markii hore laakiin wax dhibaato ma lahan. Waan is dhex gelinaynaa asxaabteeda qaaliga si sokorta ay noogu milanto oo maasha Allah si fiican noogu milanto. Si fiican ayaan isku dhex gelinaynaa waad u jeedin geesaha ayaan ka soo tirtirayaa. Sokorta markii aan soo garaaco insha Allah ayaan waxaan ku darayaa waxyaabihii kale waa intii qalalneyd ee kale maxaan ku daray waa caanihii baking powderkii carfisada ayaan ku darayaa insha Allah. Intaas ayaan haddana isku qaseynaa. Sidoo kale maxaan ku darayaa qumbihii waa hal qaado iyo wax yar ayaan ku darayaa insha Allah. Intaan ayaan si fiican isku soo dhex gelinaynaa waan isku soo noqon doonaa insha Allah. Burka ayaa ugu dambaysiinaynaa saas ay la soconaysaan asxaabteeda qaaliga ah. Waa u jeedin markaa si fiican iskugu soo qasano ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah. asxaabey waan soo qasanay waa u jeedin waa intii marka hore aan idiin soo sheegay ayaan isku soo qasanay. Burka ayaa noo haray haddana waan ku bilaabanaynaa burka. in yar ayaan burka ugu darayaa insha Allah. hal mar kuma wada daraayo. Si fiican ayaan marka hore qaadada sidaas uga oranayaa insha Allah. Kadib gacanta ayaan la gelayaa si fiican ayaan u xashi doonaa insha Allah. Markii aan soo xashino ayaan isku soo noqonaynaa walaalahey qaaliga ah. asxaabey burka waa ku soo dhameynay maasha Allah tabaarakallah waa noo diyaar. 2 qayb ayaan ka soo kala dhigtay. Qayb wax yar oo shukulaato ayaan ku darsaday. Shukulaatada aad u madooba yacni mugdi uma ahan shukulaatada. qaybta kalena waa taasa shukulaatadaasna waa u baahan doonaa insha Allah. waa iska qurxis shukulaatada haddii aadan jeclayn waad ka daysan kartaa. haddii kalena waa ku darsan kartaa insha Allah. Haddan maxaan guda galaynaa sharaxaadiisa ayaan guda galaynaa insha Allah. intaas yarta ayaan soo gooyay waa u jeedin waa qiyaas. gacanta ayaan saliid soo marsaday marka hore sidaas ayaan gacanta ku oranayaa asxaabey waa u jeedin buskudka dhaadheerka oo kale ayaad ka matali kartaa insha Allah. sidaas ay gacanta ugu balbalaarinaysaa ugu fidfidinaysaa yacni. fargeeta ayaan soo qaadanayaa sidaas ayaad ku dhahaysaa insha Allah. waad u jeedin maasha Allah tabaarakallah saas uu noogu soo baxay kaas. ka labaad ayaan soo qaadanayaa maasha Allah. wixii jikadaada ku yaalo ayaad ku qurxisan kartaa asxaabey. ka labaad waa soo qaatay sidaas ayaan haddana asagana u fidinayaa insha Allah. gacanta ayaan sidaas ugu fidiyay waa u jeedin. maxaan soo qaatay midi ayaan soo qaatay dhinacyada ayaan sidaas uga jarayaa. markii dhinacyada aan sidaas uga jaro haddana waan ku celinayaa midida si macnaha meesha aan jaray ee si fiican iigu hagaajisanto insha Allah. sidaas ayaan u sameynayaa. haddana maxaan sameynayaa gacanta ayaan sidaas ku oranayaa sidii xidig camal ayay noqonaysaa mana ahan laakiin si qurux badan ayay ku soo baxaysaa maasha Allah.
maba u baahnidba inaad warwashid ama yacni aad dhahdid bahasha lagu sameynayo buskudka ma haysto, buskudna waan u baahanahay ee sideen u samaystaa. alaabta jikadaada kuu taalo aad isticmaaleyso dib ugu noqo iyaga ku sharxo maasha allah. degdeg uga soo tuuro. maxaan kaloo soo qaatay bahasha karootada lagu hoolo ayaan soo qaatay oo ujeediin oo lagu jarjaro qaybtaas kore ayaan ka isticmaalay. maasha allah tabaarakallah sidaas quruxda badan ayay noogu sharaxda qaybta kalena. haddana maxaan soo qaadanayaa qayb kale ayaan soo qaatay qaadada beebiga aan wax ku siiyay qaybteeda dambe ayaan sidaas ugu sharxay waa ujeediin asxaabey inaba caadi ma ahan. wixii jikadaada ku yaal fargeeto midi wixii uun sharaxaad leh uun ku hagaajiso buskudkaaga insha allah. haddana maxaan soo qaatay qayb kale waan fidiyey sidaas ayaan ku dhahay ujeediin 2 calaamad ayaan u yeelay oo muxuu ahayd sagsagtimo ah. insha allah markaan soo dhammeeno ayaan isku soo laabaneynaa dhammaan. maasha allah tabaarakallah asxaabteeda qaaliga ah waan soo dhammeynay. saxankii aan foornada la gelin lahayn ayaan kusoo sharaxnay waa ujeediin. buskudka qayba wax ayaan ku sameynay maasha allah. qaybtaas qaybta midida aan ku jarayna waaye. qaybtaasna intaan fidiyey ma idinla wadaagin ayaan gacanta ku fidiyey midi ayaana sidaas ugu jarjaray. caleen ayay u ekaatay ujeediin caleenta geedka camal. qayb shukulaato ayaan ku sharxay qayb ayada dhan shukulaato ayaan ka dhigay. qayb sida rootiga camal ayaan u duubay sida markaas kula qurux badnaato ama ku fududaato u hagaajiso. maasha allah tabaarakallah walaalahay qaaliga aan jeclahay markii uu foornada nooga soo baxay waa kaasaa wuu noo bislaaday sidaas quruxda badanna wuu noogu soo baxay 25 daqiiqo kadib. qaybta hoose ayaan marka hore foornada uga shiday markii u dambeysay oo muxuu ahayd daqiiqada ay ka dhiman yihiin ayaan qaybta kore oo kaliya uga shiday sidaas ayuu noogu gaduutay. maxaad ka filaysaa buskud lagu daray qumbe haddana lagu sii daray sixin ari haddana lagu daray carfiso maxaad ka sugaysaa. caraftiisa guriga oo dhan ayuu isqabsaday maasha allah lagama sheekeyn karo inaba caadi ma ahan. dhadhankiisana maasha allah soo tijaabiyey ayaan idin leeyahay. wixii jikadaada kuu yaalo oo aad cunada ku karsato ku qurxisa insha allah oo jikada ka isticmaaleyso ha is oranin wixii buskudka lagu sharxayo ma haysatid ee buskud ma sameyn karo. isku day insha allah tijaabi wixii guriga kuu yaalo ku sharxo. waad ujeediin hay asxaabay maasha allah soo dhawaada ayaan idin leeyahay. aada u mahadsantihiin jasaakallah khayr maasha allah. asxaabey maxaan idin leeyahay soo dhawaada intaan haysan allah siiyo inta haysatan allah u barakeeyo insha allah. halkaas maxaa nooga soo baxay buskud aan inaba caadi ahayn. shahaaga cadeyska usoo qaado isku qaqabo waa maasha allah. haddaad noogu cusub tahay please subscribe-ka nagu caawi insha allah. gambaleelkana sii taab si muuqaalada aysan ku dhaafin. haddii aad ka hesho like dheh una sii share garee asxaabtaada insha allah si ayagana ay uga faa'iideystaan. wixii comment iyo duco ah iyo talo iyo tusaalahan hoos noogu reeb insha allah qaybta commentiga. asxaabteeda qaaliga intaa ku kulmi doono muuqaalo kale sidaas iyo nabaadiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.